gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad iyo abaanduulaha qaybta 3aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa booqday qaybta 3aad guutada 12aad ee ku sugan inta u dhaxaysa Jowhar iyo Balcada. ujeedada kormeerka mas'uuliyiinta saraakiisha ayaa waxa ay ahayd in ay wacyigeliyaan isla markaana ay dhiirigeliyaan ciidanka ku sugan furmahaasi habeen iyo maalinna u taagan la dagaalanka al-shabaab. ujeedka kormeerka mas'uuliyiinta saraakiisha ayaa waxay ahayd in ay wacyigeliyaan isla markaana ay dhiirigeliyaan ciidanka ku sugan furmahaasi habeen iyo maalinna u taagan la dagaalanka al-shabaab. sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad ayaa digniin u jeediyay ciidanka inaysan wax yeelaynin ayna ka nabad galaan shacabka isticmaala ayna ogaadaan ujeedka ay ugu sugan yihiin duurka guryahoodana ay ugu maqan yihiin ay tahay nabadgelyada naftooda iyo shacabka Soomaaliyeed. ugu horeyn abaanduulaha guutada 3aad qaybta 12aad militariga Soomaaliya Ismaaciil Kuulo Toori ayaa khudbad soo dhaweyn ah ka horjeediyay ciidanka militariga qaybta 12aad isagoona ku wargeliyay in la qaato awaamirta ay bixinayso maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad. laga bilaabo saacadaas haddii la arko askari ka tirsan guutada 3aad ee isku day inuu shacab jidgooyo u dhigto askarigaas waxay ogaateen inaan u la dagaalami doono sida shabaab anigoo ka faa'iideysanay maadaama maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27 oo gudoomiyay halkaan noo joogo waa ugu hadalay xogay booqashada gudoomiyaad nagu soo booqatay waana kaaga mahad celinaa had iyo joorna waan diyaarunaa insha Allah waa awaamirtii maxkamadda inaan fulino on la arag guutada 3aad askari ka mid ah inuu isbaara qaato haddii la arkana aan u soo gacan gelin maxkamadda ciidamada qalabka sida. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad Maxamed Amiin asigoona sheegay inay ka dhabayaan ciidanka waxyaabihii ay ku dhaarteen inay shacabka Soomaaliyeed ay u fuliyaan. waxaan rabnaa marka heybadii iyo sharaftii iyo karaamadii ciidanka inaan soo celin idinkaan soo celin karo waxa hub ku qaadan waa intaas dawladda qarash ay nagu bixisay waqti ay nagu biirteen inaan ummadaas ku ilaalino qofna laga yeeli maayo qorigii dawladda dhiibtay tuutihii dawladda dhiibtay kabihii dawladda dhiibtay agabkii dawladda dhiibtay inuu ku waxyeelay oo kula soo jeesto shacabkiisa. Cabdi Ibrahim M24 TV Muqdisho.